kulankan isla xisaabtanka madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo shacabka oo soconaya muddo 4 maalin ah ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo. Furitaanka isla xisaabtanka madaxda iyo shacabka Koonfur Galbeed oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, wasiiro, xildhibaano, odayaasha dhaqanka, saraakiisha ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Malaaqdeerow Yacquub, afayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin ayaa ugu horeyn kulanka ka hadlaya. Ormayga waa dadkii inta fadhido baawshaana mayra raqeeyane kii wada fayl suubiina Soomaaliland gordana kii walba laaway wal ku dhimayna gordana kii lisin magacaawi meel isku fadhiyana Soomaaliland gordana marka dadweynaha mayaan shaqane iniyo la xisaabtamaan madaxda horeeye madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka iyo golihiisa wasiirada dhamaantood inay hal wasaaradda xisaabtami jeeladahay may wari in iska dhax doomudo diidano wala suubi Abdulqaadir Sheekhuna Mayer wal suubi inta ka dhan kafaana Abdulqaadir leeki ka tafadana muddo todobo jeerta yamay buuha aad may boomay diyaarnana la xisaabtanka dadweynaha inuu may buuha fadhignaya daan wariidan dafaaco tankala may buuha la xisaabtan madil saarnay buuha siyaaba ma jira magaalada xisaabtamo wayna kiyaba shacabka iyo aaminsiin in may buuha iyo may buuha dowladda la xisaabtamo qoraan aaminsiin laakiin may buuha shacabka naftiisa may fadhiyeen iyo la xisaabtamo qoro iyo ogaada may buuha yaa baahan sababta wala ma jira may buuha civic education wala may buuha jira oo aqoonta madaniga oo la targalay in shacabka iyo baradan waajibaad iyo lukilay iyo baradan iyo waajibaad dowladda lukilay badoo jeed ogaad may buuha baahan. Gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo kulanka ka hadlay ayaa ka sheekeeyay dowladnimada waxay tahay asagoona shacabka faray in la shaqeeyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. marka saan hore u sheegay xisaabtanku waa dambeyn doona waa imaan doona cidiisa in la xisaabtamo wajib laakiin maanta insha Allah shacabku waxaan rabaa inuu uga faa'iideystaan fursadan ay heleen inuu noqdo fursad ay la fadhiistaan madaxdooda mas'uuliyiintooda wasiiradooda ayagoo u gudbinay baahidooda shacabka baahidooda ay gudbiyaan sida ay wax u arkaan in wax loogu qabto ay soo gudbiyaan wasaaraduna ay kaga faa'iideystaan cilmi baaris badan oo ay sameyn lahayn assessment badan oo ay sameyn lahayn waqti uu ku bixi lahaa laga yaabo xitaa aan lahayn maalgelinta assessmentkaas ugu sameyn lahaa inay si toos ah bulshada inay uga helaan xogta iyo macluumaadka ay u baahnayeen taasna markaas ay ku howlgalaan kadib waxa waa kulanka wuxuu noqon lahaa markaasi muddo waxay ahaato marka waqti ka soo wareegto ayadoo marka wasaaradii ay heleen xogta ay u baahnayeen. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo kulanka furay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in la isla xisaabtamo wuxuuna sidoo kale shacabka Koonfur Galbeed ugu baaqay in ayaguna ay ogolaadaan in la xisaabtamo oo ay bixiyaan canshuurta lagu dhisayo deegaanada Koonfur Galbeed. waxaan diyaar u nahay inaan wax u sheegno oo u sheegno meeshaan u soconno iyo qorshaha dawladda iyo horumarka aan wadnaan u sheegno aanna u sheegno wixii ayaga laga rabo annagana ay noo sheegaan waxay naga rabaan isla markaasna aan ka jawaabno u sheegno waxa aan qabanno waa muhiimadda koowaad diyaaran u nahay waa idinla fadhinaa wasiiradii baa fadhiyo madaxweynihii baa fadhiyo baarlamaankii baa joogo maamulkii gobolkii degmadaa joogo saraakiishii amnigaa joogto cid walbo diyaaray idiin tahay waraysta wixii aad uga baahataan laakiin waxaan rabnaa inaad ogaataan shacabka reer Koonfur Galbeed meel kasta uu joogo gaar ahaan shacabka Baydhabo joogo waxaan u sheegaynaa waxa la rabo dowladnimada la sheegayo waa shacabka iyo dadka intaana nala xisaabtamin dowladnimo waxay ka dhisantaa dadka waa iyo shacabka waxa isku tashto oo dowladda garab istaago oo horumarkooda ka shaqeeyo oo dhiirigeliyo waa shacabka reer Koonfur Galbeed waxaan ka rabnaa aqoontooda
garashadooda inay geliyaan dowladnimada. maamulka koonfur galbeed uu hogaamiyo Cabdiasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo dhisan ku dhawaad 6 bilood ayaa wada dardar ku aadan wax ka qabashada xaaladaha ka jira deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Toddobaadkii la soo dhaafay wuxuu madaxweynaha koonfur galbeed booqasho ku tagay degmooyinka Xudur, Marka iyo Diinsoor oo ay qayb ka ahaayeen ballanqaadii uu sameeyay. Shukri Ismaaciil Axmed, RTN TV, Baydhabo.